ma ahan miya waxa idin sameyn doona ka hor sato codsiga bato hadii ilaa iyo dhowr qofood ay soo dhaxdo filmood waxaas ma naqaan anaga muuqaalo oo editing noo soo sameey hadaa dhahdaan hal course buuxo application ugu fudud oo aad one day ku baran karto editkiisa ama saacado ku baran karto ayaan ka soo sameyn doona course insha Allah oo kooban tii codsigan uu bato waay insha Allah qaybta hoose igu dhaafa hadii xiiseynaysan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaamo Soomaali sul muuqaalkeedii soo gaarayo waa aniga UK ah channelka naga daawanaysan waa King UK official yo maniga spambo insha Allah muuqaalkeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay live tala ku socoto ma doonaysaa inaad editing barato ma xiiseynaysaa inaad noqoto editor video editing ah taladan adigay kugu socotaa even haday dhacdo inaad xiiseynayso inaad video editor noqoto ma mushkil waa noqon kartaa wax dhibaato ma laha wax adeega ma laha aad u fududahay inaad noqoto video editor aad u fududahay inaad barato wax mushkila ma laha aniga kula hadlaayo waxaan ahay video editor waxaan ahay Allah musta'an videographer waxaan ahay photographer saddexdaas shaqadeedii qusaysa inaan sawir qaado inaan video editor sameeyo video oo iska fahmi kartaan iyo inaan sameeyo videographer adduunkan waxa ugu jeclay laba shaqo oo ah muuqaalka aan aniga gacanteeda ku duubay inaan edit gareeyo I like this ima dhibaayo in muuqaal qof kale soo duubay inaan edit gareeyo laakiin waxaan ka sii jeclahay muuqaalka marka aniga gacanteeda ku duubo oo videographer gareeyo muuqaalka aan aniga gacanteeda ku duubo like inaan edit gareeyo aad u jeclahay aqoonteyda editka hadaan ka hadlo waxay bilaawatay software ugu horeeyay aan muuqaal ku edit gareeyo wuxuu ahaa Allah musta'an wuxuu ahaa Camtasia hore wax lagu edit gareyn jiray Camtasia aan bartay software ugu horeeyay oo wax ku edit gareeyo ayuu ahaa alxamdulillah Camtasia adiga course ahaan aan qaatay waxaan ka qaatay shahaado ama certificate software igu xigay wuxuu ahaa Filmora waa bartay waxaan ka qaatay shahaado software saddexaad aan bartay wuxuu ahaa Sony Vegas versionka uu ahaa waxa ka xasuustaa aan ku bartay aniga waxa xasuustaa inuu 14 ama ahaa versionkiis markaas haddana wuxuu maraa ama 22 miya meelahaas oo maleynaya ama 23 Allah musta'an waxa application kale aan bartay waxa kamid ah application kale aan bartay marka waxa kamid ah Advanced Resolve application la dhaho oo waxyaalaha qaar ku edit gareyn jiray oo laakiin aan dhamaysanin laakiin kaas course aan uma qaadan so for myself macnaha nafsad ahaantayda isku baray kadibna waa ka dhaqaajiyay Allah musta'an application kale oo wax ku edit gareeyo waxa kamid ah oo hadda maraayo waa Adobe Premiere Pro soo tirso waxaan ka bilaabay Camtasia waxa igu xigay Filmora waxa ku xigay Sony Vegas Advanced Resolve Adobe Premiere Pro waxa meesha ka maran hal application oo aad u fudud kaas cidna imaysan barin markaan saddex application oo kala duwan shahaado aan ka kala qaatay video editing ah waxaan sameeyay application kale dheeraad ah oo cidna aysan i baraynin xitaa muuqaalada aan daawanayna raadiyay applicationkaas waxa kamid ahaa application la dhihi jiray applicationka magaciisa waxa la dhihi jiray video blog vlogger waxa xasuustaa aad u fudud yahay sida hadda CapCut aad mobilada ugu edit gareynaysaan amal ayuu u fudud yahay computerka sidaas oo ilaahay Allah musta'an editka waa intaas oo application ah ku soo edit gareeyay waa kay khibradeyda editka waxay gaarsiisan tahay ilaa iyo almost waxa soo bilaabay inaan video edit sameeyo anoo telefoon ku soo bilaabay kadib computer u gudbay waxa xasuustaa telefoonada video wax lagu edit gareyn jiray Allah musta'an hadda isku soo day inaa xasuusto wallahi waxa la dhihi jiray kan master horta gadaalahan uu ahaa iska daa waxa jiray application kan master Korea aan wax ku edit gareyn jiray xasuus uma lihi laakiin waa application qadiimi hore telefoonka aan isticmaal jiray Samsung ayuu ahaa okay telefoon wala sigala soo gudbay waxa la imaaday computerkii ayaan ku bilaabay in wax ku edit gareeyo Camtasia Filmora Sony Vegas Advanced Resolve Adobe Premiere Pro intaas ayaan ku soo edit gareeyay I hope in 6 yihiin ama 5 marka intaas ayaan wax ku soo edit gareeyay qibradeyda editkani waxa ka soo bilaabay 17 18 19 20 ilaa 3 years ugay 21 22 23 adiga waxa ku dhex jira editkan 6 sano qof aaminahay ma jiro waa yartay 6 sano si ugu jirta lagu leeyahay sax waa yarahay laakiin Camtasia marka wax ku edit gareynay 2017 ayaan bilaabay inaan computer wax ku edit gareeyo ma sha Allah hadda waxa maraya Adobe Premiere Pro oo alxamdulillah ku nastay so marka waa ku nastay kuleeyahay waxa kamid ah wax walba oo edit quseeyo aad ila fudud yihiin marka okay marka ka soo gudbo inta waa ka sheekeyntii iyo wadooyinkii aan soo maray editka ay ahaayeen marka adiga ayaan kula talinayaa taladeeda adigu ay ka qusayso hadaad rabto inaad editor noqoto waa maxay taladeeda waxay tahay wax walba baran kartaa awal laba go'aanka aad qaadatay ka dhabeey oo ah video macnaha waxaan rabaa video editor aan rabaa inaan noqdo application habelan baranaya labo go'aanka ka dhabeey saddex application alaal application ka barato oo qof ka barataba ama course ha aha
qaado like la soo geliyo YouTube-ka ama meel kale ka raadsatay waxaad barato isku day inaad ka qaadato shahaado waa kula talin lahaa midaas saddex shahaado haysta waxa ka kala qaatay aan ku sheegaya Camtasia waxaan ka qaatay Filmora oo markaas bartay oo asigana shahaado ka qaatay application saxda shahaado ka qaatay I hope inuu ahaa Adobe Premiere Pro soo rajayna inuu yahay sababtoo ah shahaadooyinkayga waa tira badan marka wax walba bartay shahaado ka qaata marka midaas kula talin lahaa adna inaad sameeyso okay talada kale iga ka aadan adiga oon ku siin karo waxay tahay haddaad baranaysid editing ha ka bilaabin ona applicationada oo like dadka browga isticmaalaan oo dadka tagay isticmaalaan oo edit-kooda waaliga ha ka bilaabin haddaad bilow tahay taas liijab igama ahan tusaale edit baad baranaysaa waxaad dhahday Adobe Premiere Pro ba ka bilaabaya weligaan ruux maada edit gareyn taas way ku keenay madax xanuun ku keenay ulta waqtigaaga inuu ka dhumo ayaa dib u soo laaban applicationada hoosaad ka soo bilaabay taas kulamaan taliyeen waxaad ka soo bilaabaysaa Filmora waxaad ka soo bilaabaysaa Camtasia meelahaas markaad soo marto xogaa Sony Vegas oo soo fahmaysaa oo xogaa iska adag soo fahmay kadib Adobe Premiere Pro maalinsa waxaad dareemaysaa nasiino in gacmahaaga dhunkanay Adobe Premiere Pro markaa taf ku noqoto sababtoo ah tala yara ku siinaya Adobe Premiere Pro markaa ku edit gareynaysid kad inaad sameeyso oo wax kala jirto dhan waxa kugu filan inaad hal xaraf gacantaada ku taabo dad badan Adobe Premiere Pro bartay waxa oo dhahaya hadda meeshan ku jiro markii wax la jaraayo control hebel malqa waxa soo la sagadray hal xaraf oo keyboard ka mid inaad taabato ayaad muuqaal ku kala jari kartaa Adobe Premiere Pro markaad maraysid marka insha Allah soo muuqaalkeen halkaas ayuu ku ekaan doonaa talooyinka ku siinaan waa midaas hadda dirtid inaad muuqaal sameeyo aad noqoto ka bilow applicationada hoose Filmora Camtasia waa talo ma ahan miya waxa idin sameyn doonaa ka hor soo codsiga bato hadii ilaa iyo dhowr qofood ay soo dhahdo Filmora waxaas ma naqaan anaga muuqaalo oo editing noo soo sameey hadaa dhahdaan hal course buuxo application ugu fudud oo aad one day ku baran karto editkiisa ama saacado ku baran karto ayaan ka soo sameyn doonaa course insha Allah oo kooban codsigan uu bato waay insha Allah qaybta hoose igu dhaafa hadii xiisaynaysaan waa in soo sameynaya marka insha Allah adna isku day inaad sameeyso video editor inaad noqoto hadii ay go'aankaaga tahay waad sameyn kartaa insha Allah inta ka kulmeen muuqaalkan waxa leeyahay save next video booklet awliya kalmina Allah